دلا ودلاء. beriga waxaa jiri jiray nin reer Ciraaq ah oo hilibla ahaa. maalin kasta wuxuu qali jiray xoolaha kadibna hilibka ayuu dadka ka iibin jiray. maalin isagoo shaqadii ka soo laabtay ayuu wadada ku arkay gabadh geed ku tiirsan oo ay mindiyay wadnaha kaga taagantay. markuu soo dul istaagay ee uu ka saaray mindidii ay dadku ku soo xoomeen kuna yiraahdeen adiga dilay gabadha. buuq iyo dhaar kadib boolis baa goobtii yimi. dadkii meesha joogayna waxay ku wada markhaati fureen inuu isagu gabadha dilay maadaama uu mindida gacanta ku haystay markay arkeen. ninkii taa ku cadaatay booliskiina xabsigu u taxaabay. maalmo yar gudahoodna dil baaba lagu xukumay. maalintii la dili lahaa ayaa raggii dilkiisa fulinayay ku dhaheen intaan lagu dilin waxaad nooga warantaa wixii aad ku dishay gabadhaas. wuxuu ku jawaabay 20 sano ka hor waxaan ku shaqaysan jiray doon taasoo aan webiga Furaad dadka kaga talaabin jiray dadkana lacag kaga qaadan jiray. maalin ayaan webiga ka talaabiyay gabadh aad u qurux badan taasoo damaci gelisay. waxaana weydiistay inaan gurigeeda la seexdo laakiin way iga diiday. muddo kadib ayaa haddana doontaydii iyo safarkeedii isku soo beegmeen. aad ayaan u farxay. waxaana u arkayay fursad aan ku gaadi karo balse markan keligeed maaha ee waxaa la socda wiil yar oo ay dhashay. doontii ayay soo fuushay. xoogaa markaanu soconnay ee aanu bartamaha webiga marayno ayaan ku soo dhawaaday oo damcay inaan jirkeeda taataabto. wayna igu qaylisay. wax jajleecana waan ka waayay agteeda. ugu dambeyn waxaan lugta qabtay wiilkii yaraa kadibna aan biyaha madaxa u geliyay. waxaana ugu hanjabay inaan biyaha ku sii dayn doono wiilka haddaanay waxaan raba ii yeelin. wiilku xoog buu rafanayaa iyana waxay iga baryaysaa inaan wiilka biyaha madaxa uga soo saaro balse uu u neefsado. daqiiqado yar gudahood wiilkii uu dhaqdhaqaaq daayay. markii aan dabada u soo saarayna mise wuuba dhintay. ugu dambeynna maydkiisii webigaan ku tuuray. dilka aan berigaa geystayna waa kan maanta aan abaalmarintiisa helay ee sababtiisa lay daldalayo. laakiin ogaada gabadha mindida lagu dilay anigu maan diline raadiya dilaagii dhabta ahaa. wuxuuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyay odhaahdan dilaagu waa kii wax dilay uun walow waqtibaha ka soo wareegay. haddaba dulucda sheekadu waxay ku soo ururaysaa haddii aad gacan ku dhiigla tahay maalin uun ayaa lagu abaal marin. maalintaasi aakhiriye adduunka kay doontaba ha ahaatee.